فاضمو عثمان آذن oo saakay loo ballansanaa in loo mehriyo Khalid Maxamed Maxamuud oo ka yimid dalka Mareykanka ayaa isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa ku geeriyootay saacado yar ka hor waqtigii loo ballansanaa in meherkeedu dhaco. Faadimo ayaa waxaa ku soo booday xanuun galiinkii dambe Jimcihii shalay kadibna waxaa la dhigay isbitaalka Hargeysa International Hospital oo ku yaala magaalada Hargeysa. qoraa Axmed Karaama oo ay Faadimo jaar ku ahaayeen xaafadda Maxamed Mooge ee Hargeysa muddo 15 sano ah ayaa boggiisa Facebook ku qoray in isaga oo dalka ka maqan ay Faadimo ka codsatay in aanu ka maqnaan farxadeeda. walaashay isla hadda ayaan u sii labistay sidii aan uga qayb gali lahaa meherkeeda oo ku beegnaa isla maanta anigoo wadanka ka maqan ayay igu oran jirtay ii soo dhaqso walaal aad ila joogtid maalinta farxadeyda. waan ka xumahay inaan maanta u jooga geerideeda. walaashay waxaa si lama filaana ugu soo booday faaliq ayuu yidhi Axmed Karaama. xabaalaha haleeye magaalada Hargeysa ayaa maanta lagu aasay marxuum Faadimo taasi oo ay ka soo qayb galeen kumanaan dadweyne ayagoo halkaasi tacsi u diray ehelada iyo dadkii ay u qorsheysaneed in ay ka qayb galaan meherkeeda oo ka dhacay magaalada Hargeysa. farxadeedii oo maanta ku beegnayd ayaa waxa ku soo booday faalug xalay markay seexatay inantu waxay inan qiimo badan oo ehlu cibaado ah ilaahay samiriye iimaan saadiq ah inaga siiyo. موت قفله xanuun ka xanuun ku leeyahay nabiga kaleey salaatu salaam ku duceysan jiray marka waxaan halkan tacsoo dirayaa dhamaan ehelka iyo qaraabada muxuu ahaayay caruuskii ay noloshooda ku heshiiyeen inay noloshooda wadaagaan oo runtii iyaduna marka isagana runtii garabkiisa ka baxdayna waan si gaar ah ayna uga tacsiideynaya. shaarkaan xidhanay waa shaarkaan doonayna meherkeeda ku tago aan ku aasayahay marka iyadu dhimantay Allah u naxariisto waxa wanaagsan in lagu cibra qaato noloshu meel aanay jirin cashar baa ku jira duruus baa ku jirta in qorshaha alle wax walba ka weeyay meesha ku jirta. aaskii Faadimo Cusmaan Aadan Dheed oo runtii ah qof aad iyo aad sidaad u aragtaan bulshada ugu dhex jirto qof Ilaahay khayr ku manaystay oo xalato laga soo booday madaxa dhiig ku furmay saakana geeriyootay. waxa taas iyaduna ku daraya in ay ahayd in maanta meherkeedu dhaco oo meherkeedu inuu maanta dhacay ahayd inankii loo meherayay uu jooga hadda aaskiisna waxaan leenahay Ilaahay samriye iman ka siiyay isaga iyo family. sheekha loogu talagalay inuu maanta mehriyo marxuum Faadimo oo xabaasha korkeeda kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay arintani. saakay ahayd markii la igu yeeray la kaala inanta meheri laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala tiisi baa ka soo hormartay oo qadarkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa ka soo hormaray deedin bini aadanka dhanna halkaas loo wada socday qof joogaya mal qof walba qabrigaas la gelinaya in leeyno soo jirana ma ogin marka waxayna la gudboon dhamaanteenba inteena nool inaynu aakhiro u sahay qaadano qabrigaana u diyaar garowno meesha waxaynu la tagaynahayna u diyaarsanaba inala gudboon. Ilaahay ha u naxariisto qabrigana Allah ha u nuuriyo jannati firdaws a'laana Allah ha geeyo. ugu dambeyn Cusmaan Aadan oo ah aabaha dhalay Allah u naxariistay Faadimo Cusmaan Aadan ayaa isna halkaasi tacsi ka diray. waxaan halkan maaragtay tacsi uga soo jeedinayaa insha Allah ta'ala qoyskayga maaragtay iyo maaragtay qaraabadayda iyo maaragtay walaaladay ilmaadeeraday ehelkay qaraabaday tolka iyo intii magacayga iyo muuqayga garanaysa iyo dhamaan asxaabteeda iyo maaragtay cidii ay ka tirsanayd bulshada qaybta caafimaadka ay ka tirsanayd macalinkeedii waa kan oo maaragtay jaamacadda maaragtay waxay ka baxday shaafi bay ka baxday maaragtay madaaristii iyo quraankana insha Allah ta'ala iyadana way ka soo baxday. waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu Ilaahay jannada ka waraabiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qowlka saabadka uu ku sugo Ilaahay maaragtay dhamaanteena samiriye iimaan dhamaanteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu naga siiyo dhamaanteen saasaan Ilaahay ka baryeynaa. geerida Faadimo ayaa gelgishay baraha bulshada dadka oo dhan ayaa ku sheekaysanaa farxadda murugada isku bedeshay qof kasta oo yaqaanay ama maqlay sheekadeedana waxay ku abuurtay dhiilo. Alle ha u naxariistee Faadimo Cusmaan Aadan
oo hadda aaskeeda uu ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd umuliso caafimaad oo ka howlgashay cisbitaalka weyn ee Hargeysa halkaasi oo ay ka howlgalaysay 6 bilood ee u dambeysay. xirfadda umulisanimada ayay ka baratay Machadka Culummada Caafimaadka ee Shaafi College kaasi oo ku yaala magaalada Hargeysa. 10 Luulyo 2021 ayay ahayd markii sidaan oo kale ay baraha bulshada u qabsatay geerida dhiilada leh ee Axmed Deeg Cismaan oo shil baabuur ku geeriyooday kadib xafladii meherkiisa magaalada Harta Sheekh ee Itoobiya. sidaas la mid ahna Fahad Cabdiraxmaan iyo Farxiyo Cali Cumar oo ahaa aroos cusub ayaa aad looga naxay kadib markii ay ku geeriyoodeen qaraxii Hotel Africa ee 31 Janaayo 2021.